بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ددوينها الريجب وتمال كستود جوكتان واندين سلاميا ولا ليال وحال يريا الدنيا دن النولو محا أركتكو اللابان ساكا وحان صوب بغدي عبد الرب لقرشيلة قريقو كدقين يهي حافدوين تبلبلا إساقو كوكدو بلك بلكتا waxaan la sheekaystay Cabdi Rooble Qarshiile waxaan soo booqday on soo indheeyay nolosha uu ku nool yahay runtii ma jecli halkan inaan idin ka soo bandhigo dhibaatooyinka faraha badan leh ee haysta Cabdi Rooble Qarshiile Cabdi Rooble Qarshiile waad wada garanaysiin cidda uu yahay Cabdi Rooble Qarshiile shakhsi maaha Cabdi Rooble Qarshiile waa uu ka sareeyaa shakhsi عبد الرب قرشيله قف معها وكسر يا قف نمدا عبد الرب قرشيله وأمد الريجبوتي أردن عبد الرب قرشيله ودلك أردن عبد الرب قرشيله وأستانتي على كنا أبورتي عبد الرب قرشيله وشرفت يا كرامدا قف كستور ريجبوتيا وهو يهي عبد الرب قرشيله رنتي مركان ساكا صوبوغ دي بوريجيسا waxyaabaha uu waaweyn ku soo arkay waxa kamida koronto la'aan ba kamida waxa kamida group yar uu shito daalay ba kamida waxa kamida gaaswaan la'aan uu groupkaas korontada u dhalinaya uu ku shito waxa kamida noloshiisa oo hoos u taala ba kamida waxa kamida daranyada iyo dibta ku taala dafoorkiisa ayay ka muuqataa qof kasto reejibuutiya oo damiir leh oo dhiig leh marka uu Cabdi Rooble Qarshiile soo booqdo uu arko isaga iyo gurigiisa runtii ciil iyo cadha qabanaysa walaalayaal waxaan jeclayn inaan halkan wax ka sheegno una tilmaamno taliska gaar ahaan ninka maamula Ismaaciil Cumar Geelle waxaan ku sheegaynaa in haddaanad garanayn adigu awoodiisa haddaanad garanaynin kartidiisa haddaanad garanaynin taariikhdiisa waan ku tilmaamaynaayo waa aan ku baraynaa waxaan ku baraynaa calankan eed madax baan ka ahay leedahay ee dalkan maamulaad leedahay astaanta ka dhex muujinaysa adduunka Cabdi Rooble Qarshiile ayaa sameeyay booqashada markaa dalalka dibadda aad ku tagtid astaanta lagu saaro ee lagu karaamadeeyo ee lagu sharfiyo Cabdi Rooble Qarshiile ayaa saaray magaca iyo sharafta aad isleedahay waan huwanahay cidda ku saartay waa calanka weey calanka ku saarayna sharafta iyo karaamada cidda huwisay waa Cabdi Rooble Qarshiile maantana Cabdi Rooble Qarshiile kooraan la'aan ayuu guri dhex jeefaa Cabdi Rooble Qarshiile lacag ku filan oo ku noolaado ma haysto waxa aan kuugu yeedhaynaa Ismaaciil Cumar Geelle aragti baan kuugu yeedhaynaa waxa aan ku tilmaamaynaa waxa aad garan weyday baan ku tilmaamaynaa waxa aan ku sheegaynaa waxa aad garan laadahay baan ku sheegaynaa Cabdi Rooble Qarshiile Cabdi Rooble Qarshiile maaha Cabdi Rooble Qarshiile shakhsi maaha Cabdi Rooble Qarshiile qof maaha Cabdi Rooble Qarshiile waa taariikh weey Cabdi Rooble Qarshiile waa ummad weey Cabdi Rooble Qarshiile waa dal weey Cabdi Rooble Qarshiile waa calan weey Cabdi Rooble Qarshiile waa ummadda iyo dalka iyo calanka iyo sharafta iyo karaamada weey ma waxaad u quuri weyday inaad kooraan bilaash siisid ma waxaad u quuri weyday inuu mishaar nolol fiican uu ku noolaado uu helo baad u quuri weyday subhanallah 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 ilaahay waxaan ka baryaynaa ummadda reejibuutina aan la qaybtamaynaa dalkeena cidda xakunti waa cidda weey u quuri weyday kooraan bilaasha inuu siiyo Cabdi Rooble Qarshiile oo astaantii calanka oo astaantii qaranka oo dadkii oo dhana oo dalkii oo dhana subhanallah 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 waxa aan leenahay oon halkan ka cadaynaynaa in kooraanka bilaash lagu cabo in wasiiradoo dhan ay bilaash ku cabaan in direktooradoo dhan bilaash ay ku cabaan in haramuus Ismaaciil Cumar uu bilaash ku cabo Cabdi Rooble Qarshiile oo astaantii qaranka
oo calankeeniina loo quuri waaye dhowr kun oo kilowaad oo koorana loo quuri waaye waa nasiib darro weeyaan waxaan ognahay lacagta dalkeena soo gashay inay durdur tahay baan ognahay lacagta dalkeena soo gashay in meel kasta waxay lagu sameeyo baan ognahay subhanallah Ismaaciil Cumar Geelle waxaan ugu yeedhayaa waxaan ku leeyahay Cabdirooble Qarshiile haddaad adigu tegi karayn ood soo booqan karayn ood soo arkaynin nolosha uu ku nool yahay calanka iyo astaantaad huwanayti iska dhaadhici baan ku leeyahay iska dhaadhiciyo waa ceeb baan ku leeyahay inaad astaantii qaranka iyo calanka aad meel kasta aad la martid adoonan u quuraynin inaad soo aragtid Cabdirooble Qarshiile waxaan kuugu yeedhayaa annaku waan soo aragnay indhahayagaan ku soo aragnay lugtayadaan ugu tegnay waa aan la sheekaysanay kaalay ha ku odhanin wasiir ha u dirin director ha u dirin adoo lugaynaya u teg la sheekayso noloshiisana soo arag ummadda reer Djibouti waxaan leenahay cid kasta oo dhiig leh cid kasta oo damiir leh Cabdirooble Qarshiile waxa uu galaa biligta agteeda buu galaa waxaan idinku yeedhaynaa inaad soo booqataan la sheekaysataan soo aragtaan nolosha uu ku nool yahay inikoo socda soo arka inikoo dhuumanaya oo dhabarku muuqda ha u tegina inikoo madaxa taagaya oo soo booqda taswiiraha iyo fiidiyoyadana ka daaya waayo Cabdirooble Qarshiile uma qalmo in taswiirihiisa iyo fiidiyoyadiisa nolosha uu ku nool yahay iyo tiifta dhafoorka kaga taala in baraha bulshada la soo dhigo uma baahna ee ciddii damiir leh ee dhiig leh waa inay u tagto inta Ismaaciil Cumar Geelle la joogtana waxaan ka leeyahay ee la talisana waxaan ka leeyahay Ismaaciil Cumar Geelle sidaan annagu wax ugu sheego oo waxaad ka tidhaahdeen Cabdirooble Qarshiile n'importe qui maaha waa astaanta iyo calanka aad huwan tahay ee adduunka ku maraysid u sheego Ismaaciil Cumar sidaa wax ugu macneeya kolley waxa la yiri nolosho nin noolow maxaa aragti ku laaban insha Allah ta'ala waxa aan rajaynaynaa Cabdirooble Qarshiile oo daranyada iyo silica iyo ciilka ka baxaan rajaynaynaa ummadda reer Djibouti meel kastoo joogtaan waan idin salaamaynaa jamhuuriyadda Djibouti ha noolaato shacabka reer Djiboutina ha noolaadaan wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh